جنسية قفك مسلم كي والعقيدة وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول والتكين يسمى أنت تركي أو سياسة هان أنو على هاي أركتدا أي كوا ذاقيان سومالا كو إيجيان أنو كو كلا جدي سنة أولا نوا قلدنتين تبو إيجا إلى أنه هذا أوجرجار نو قال هذا أوجرجار هذا ما يسمى المنهج التشريعي الفهمي كينية إن أنض ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يا إن حقوق ذو الدفاعين قال ما أنت أيدوني صدق إسلام كائني كبر بوريسو سبحان الله تعينك هذا لنا تاوي إذن يعني باختصار أنا وقتي بدل كقاضي كل يسقال بقول يا أفريقيا كنت كيبورد شيء كلا إلى أرطغرل سيد تاريخ تلاقوا شيء إنه يرو أدو خير أدو تلاسن كل شيء بوه ولذلك وحوي وكونياش إسطنبول بكل شيء ميلها المانت دق اندهارو كلي شيء ده هي إنه موجي سبحان الله كونياش ضد كير تلاسن أي دقيقين طامي وكلي ميلها صوك أيوكو كور waxbarashadii wuxuu ka soo saari jiray wuxuu dadkan sambiil ka la wareegay marka keegiro simsim la oran jiray oo ay aad u isticmaalaan buu iibin jiray iyo nacnac yar iyo waxa soo la wareegay si uu iskaga bixiyo fiiga reerkoodana wuxuu ugu tar 1969 buu ahaa 15 jir ahaa markii uu bilaabay in uu ka qayb galo siyaasadii marka Istanbul xaaradda uu joogay oo ardaydu أي سمين ترين دقائق سياسية من اجتماعية وحنو نقضي شخصية متفوهة يضعوا سوق دمي شيخي سي مركاسي مدرسة مالين وطولين وباروس سيدا لوتو كدو أيا مركو إلمن تريقاها أيولي يا ما أنت صامبال لقوني سيدا لوتو كدو داد كتوسيا مركا رجل ديم والدقان باسواب بحي مركاساني كي معلكا وآض وحلي قابكا ووتو كدي يسيدو وافجي نصوصتي مركاسي رسولك عليه الصلاة والسلام تلنا المهم دقدقاقا سوحا وكاني إنو سقالي لحدا كي سقوشن يتوانجر سدا كسعودو إلى حد وكبيري كوني سقال بقول يسديتن كي حزب السلام أو حزب كوري حزب الرفاه أما حزب العدالة والتنمية أو تنئمك أي سبيين مركي طبعا ستيتن كي وكوين ما كان أسكرتي قبصدي ولا كلا دري حسابتي أفري ستيتن كي بدب هذا روح هو لوجو وقلاضي مركزو كبيري حزب العدالة والرفاه بس وراك مدير كدب شني ستيتن كي وحنا قضي السلطة المركزية في اسطنبول قابك وهذا قابك وضدك وحريرني لأنه وحنا الله إلى هذا تقريبا كقاتل نقالها وقت قاس مركا وحنا قضي الشخصية متفوح markaynu iska soo ururno 2002 markii uu xisbigooda ku guuleystay Istanbul buu qabtay oo maayarka ka noqday Istanbul waxa la yiraahdaa markaasi waxa lagu lahaa 1 milyan oo dollar baa lagu lahaa dawladda hoose markii uu gacanta ku qabtay subhanallah waxa uu gaarsiiyay inuu intii bixiyo isla markaasi dawladaha hoose Yurub markii la qiimeeyay magaalooyinkooda inuu ka dhigay magaalooyinka ugu dakhliga badan leh magaalada Istanbul ila xad uu gaarsiiyay shaqaalihiina inuu 300% shaqaalaha dawladda hoose u kordhiyo dibadda waxay gaadheen dawladii hoose ay noqoto dawlad ka awood badan dawladii dhexe ayaa uu ka dhigay ninka loo yaqaano Erdogan maalin uu masaajidka ugu weyn ka hadlay la almaniyata fi islam marka waa intii almaaniyaduna ay xoog lahayd wuxuu almaaniyadu kama shaqeynayso Turkiga maadaama uu yahay 100% dal muslima uu yahay markaas wuxuu soo qaatay gabay nin shaacir oo muslim oo attract kamida oo walaalnimada iyo isku xidhnaanta iyo sunnaha aad iyo aad uga sheekay nimankii
khubarada ahaa ee calmaaniyiinta ahaa wadda intaasoo sannadood gacanta ku soo hayey mustafa kamaal ataturk uu sameeyey ayaa u khadiday dabeeto qoraal bay diyaariyeen aada u qurux badan waayo lawyerskii oo dhan bay haystaa dabeete waxaa la yidhi ninkaasi dadkuu qaybinaya isla markaasi diin cusub buu keenay sharcigu xaq u leeyahay in maayarnimada laga qaado in la xidho waa la iskugu quruurixiyey ilan mu'asasaadkii oo dhan bay haystaane dibaddaa loo tuuray weliba waxaa lagu xukumay 4 bilood in la xidho subxaana allah waxaa la yidhaha markii xisbigooda uu guulaystay isagay ahayd inuu madaxweynaha qabto laakiin cabdalla good wuxuu usoo qadimay si aan loo iskaga hortaagin inta xidhitaankii la xidhay dib loo eegayay inaanu xaq ahayn almuhim waa tii la soo daayay markii cabdalla gool uu qabtay ee ay dee ku guulaysteen 336 kursi ay ku guulaysteen waa la soo daayay xukunkiibaa runtii laga jabiyey akhiiran waa kan maanta noqday madaxweynihii turkiga ninka loo yaqaano Erdogan muxuu ku soo kordhiyay haddaba intii ay talada hayeen waxaa lagu lahaa 750 oo milyan ayaa turkiga lagu lahaa yacni 740 milyan ayaa lagu lahaa turkiga iska daa wuxuu turkigu soo saaro 2013 waxay gaarsiiyeen inay lacagtii bixiyaan isla markaasi 5 milyan walbanka markii dee dunidu wadigii ogaa dhaqaalihii dunida ee Wall Street Mareykanku waa kuwii khalkhalka galay walbankiiba qayliyey wuxuu lacag baa loo baahay dalkii ugu horeeyay ee uu xamaahiyey wuxuu gaarsiiyey inuu 5 milyan amaahiyo iyadoo la leeyahay 100 milyan markaasi khasnada ayay ugu jiraan يعني واحد ويحس بقى وهو قامين سبحان الله وحو قال سي شن بقول يشن يسقاشن دختر واستاندر كيروب عالمي غايرو سمي وحو سمي شن بقول او جامعادود انتي وقعت كوي Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi. wuxuu ka dhigay maalintii Mareykanku markii Wall Street-ka uu dhacay ee la yiri jaamacadihii isma bixinayaan ee la yiri lacagta ardayda fiigaha lagu kordhiyo isagu wuxuu soo saaray dhammaan jaamacadaha Turkiga oo dhan waa bilaash annaga kharashkooda bixinay سبحان الله وحسمي الدبابدي وجوه الرئيسي يوروبيا أمريكان كواي كيابان انتيو هي وحو تري يعني وحو الساتلايت كي ما انت بريغا دحي يوروبيا أمريكان وجو رامي كرامركا اي سقبتان ايا وينتيو توغي واستخبارات كرونتي عسكريغا كان وحو سمي ان كبدن كون iyo 580 سنتر oo technology-ga maanta dunida lagu hogaaminayo lagu sameeyo wuxuu sameeyay in ka badan 40,000 oo dadka mutakhasisiinta ah in meel la fadhiisiyo wax xalaal waxay u baahdaan la siiyo si ay ula tartamaan Mareykan iyo waa maxay ma yafuq al-hisban Turkiga xisb al-adalati war-rafah 112 bay ka ahayn dawladaha marka la qiimeeyo xagga dhaqaalaha 112 maanta wuxuu soo gaarsiiyay 16 dalka 16aad G20 inay 16 ka noqdaan buu soo gaadhay bal 112 subxaan allah ayay ku jireen 129 ka dawladood iminkana 6 yani dalka 16aad ayaa u magarantay maalintii ay qabteen talada qofka dakhligiisu sanadkii waxa 3500 wuxuu gaarsiiyay 12000 iyo $450 dakhliga qofka macnaheedu waxa weeye France oo agta dunida sidii u gumaysatay ilaa imka dhaqaalaha Afrika yani ma garatay Central Africa iyo ma garatay galbeedka Afrika imise dalbay diamondooda macdantooda maxay qaataan ilaa imka in uu ka hormariyo dakhliga Faransiiska qofka Turkiga dakhligiisa subhanallah المهم باختصار waxaynu ku soo ururinayna waxyaalaha la yaab kale waxa kamida nimanka dunida haysta ما أقول ما يلا داف المهم
turkigu wuxuu dhaafay xuduuddii gaaladu ay ogolaayeen. iminka turkigu maxay abuureen dabaabadii aada ogeyd inta tan ee ay tahay ayaan inis hortaago markaasay kii hore jiidhay isagoo arkaya kii labaad inay kii hore jiidhay ayuu isaguna isu dhigay markaasay kii kalena jiidhay markaasaa kii saddexaad isagoo arkaya in kuwaasi ay burbureen ayuu kii saddexaad haddana isu dhigay si uu joojiyay dabaabada wa ficlan qaawamo dadkii oo acsala ayaa waxay ogolaan waayeen in ay shaqeeyaan diyaaradihii abaaji inay shaqeeyaan waxaa la aqbali maayo yaa sameeyey qiyamka iyo akhlaaqda in la ilaaliyo waa kuwa lala dagaalamay mujtamac muslima oo waaciya oo wax kala garanaya oo xagga loo guuraya garanaya ayay sameeyeen markaasaa yurub iyo maraykan iyo yahuud way ka tashadeen waxay idhaahdeen yacni caajilan aw aajilan waa in laga takhalusaa turkiga waa in laga takhalusaa hoggaankaasi toosa unutmayın ha ilaabina weligiin in habeen kastad oo duma waa ka dambayn doono xagaa kasta oo yimaadana uu gu ka dambayn doono waxaa jirta awood weyn oo murugada u beddesha farxad gudcurkana ka dhigta caddo waxaa jirta quwaddii nebi yuusuf ka soo saartay jeelka kana dhigtay boqorkii masar waxaa jirta quwad weyn oo muuse ku barbaarisay gurigii fircawn kana dhigtay markii dambe inuu isagu u taliyo halkaas waxaa jirta awood fircawnada madaxa jabisa iyo cid kastaoo wax dulmida awooddaasoo maqasha baroorta kuwa la dulmay una gargaarta kuwa sabra kaasho ilaahay oo la jira dhankiisa haddii uu dariiq jiro waa kaas mana garanayo dariiq kale oo gargaar aad bidi karto uma sacabeeyo dulmiga mana jecli daalimka weligay ma karo mana awoodo xataa haddaan geeriyoonayo inaan baadil u caabudo anoo adeegsanaya magaca xaqa weligay waan jeclaa xorriyadda tan iyo dhalashadaydii haddaan ahay mid dabacsan yaa ku yidhi waxaan ahay sumal cid kasta adeeca waa laga yaabaa inaad madaxa iga goyso laakiin lagama yaabo inaad madaxayga foorariso